Soo dhawow daawade, waxa aan maanta kuu soo gudbin doonaa sida ugu sahlan ee lagu soo jiito qofka aad ka heshay. Talooyinkan raac si aad jacayl ugu abuurto qofka aad danaynayso. Weligaa ma isku dayday inaad jacayl ku abuurto qofka aad ka heshay? Kadibna ma garan weysay sida ugu fudud ee aad guusha ku gaari karto? Ma og tahay inay suurtagal tahay in ay jiraan dad adiga laftaada kaa helay oo doonaya inay ku soo jiitaan, ayna aad u xiisaynayaan xiriirkaaga. Haddii aan ka fiirino dhankaaga, waxaan halkan ku eegaynaa dhowr xeeladood oo aad ku adeegsan karto si aad ugu heshid dareenka qofka ku cajabgeliyey oo aad doonayso inaad mustaqbal qurux badan la wadaagto. Qodobka koowaad, lambar 1, dabeecaddaada saxda ah kula dhaqan qofka. Marnaba ha isku dayin inaad isbeddel dhanka dabeecadda ah iyo shakhsiyadda aad ku samayso si aad ugu soo jiidato qofka aad ka heshay ama aad jeclaatay. Waxa ugu wanaagsan ee aad qof walba ku soo jiidan karto waa shakhsiyaddaada dhabta ah. Ogow in xitaa haddii aad ku guulaysato soo xirigelinta qofka adigoo iska dhigaya si kale, ay maalin uun niyad jab ku keenayso marka la ogaado qofka runta ah ee aad tahay, dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaanba labadaba. Qodobka labaad, daacadnimo. Daacad ka noqo dareenkaaga ku aadan qofka aad ka heshay ee aad doonayso inuu xaggaaga u soo dhowaado. Ha ku darin waxyaabo been ah ama ka badbadis ah. Runta sheeg xitaa haddii aadan ku qanacsanayn, sababtoo ah ma garan kartid natiijada ka imaan karta. Adigoo ka heshay qofka oo niyadda kaa jecel, ha ugu dhigin inaad habeenkii seexan karin ilaa aad sawirka qofkaasi aragto. Haddii taas sax tahay, u sheeg. Laakiin haddii aysan run ahayn, daacadnimo muuji, hana sheegin wax aan jirin. Qodobka saddexaad, murti iyo madadaalo. Noqo qof leh murti iyo madadaalo oo dadka ku farxad geliya ama kaga qosliya hadalladiisa. Sidoo kale fahan marka kaftanka la sheego adigoo muujinaya sida aad ula dhacday. Gabdhaha badankooda waxay jecel yihiin ragga sheekada badan, sheekadooduna ay xigmad xambaarsan tahay. Qodobka afaraad, kalsooni yeelo. Kalsoonidu waxay muhiim u tahay soo jiidashada qof kale. Sidoo kale adiga laftaada ayay ku siinaysaa niyad wanaagsan iyo in aad naftaada jeclaato. Intaasi marka aad samayso, noqo qof mar waliba diyaar u ah caawinta. Haddii aad awooddo, waa hubaal in dabeecadahan ay sabab u noqon karaan inuu kugu jeclaado qofka aad danaynayso. Tallaabooyinkan aan hadda kula wadaagnay waa kuwa kuu suuro gelinaya in aad si sahlan u soo jiidato qofka aad danaynayso. Muuqaalkeennii maanta waa naga intaa. Fadlan sheer garee oo la wadaag bulshada idinku xiran. Mahadsanidin.